bilaabtay suuradii 108 magaceeda waxa la yiraahdaa suuratul kawthar iyaduna waa maki waxay kamid tahay suuradaha soo degay intii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maka gudaheeda uu ku noolaa aayadaheedu waa 3 siday u hadashay suuratul kawthar laba meelood bay taabatay mid waxay ka hadashay ilaah galadu weyn oo uu nabigiisa calayhi salaatu wasalaam ku galadaystay oo khayr tirada ka badan ilaah uu siiyay mid adduunyo mid aakhira labadaba leh haddaad ka bilowdid nubuwadii nabi baa laga dhigay oo kitaab qur'aan ah lagu soo dejiyey oo xigmiya murtiba alla ka buuxiyey oo aqoon iyo macrifa alla u furay oo ilaahay addoomuhu u kala akhyaarayn doonaa shafaacatul cudmaa baa alla siiyey oo barka kan la sheegi doono oo aynu tilmaami doono ayaa rabbi siiyey ummaddiisa cabayso oo maqaam almaxmuud meel dunidoo dhan ama caalamka oo dhan uu ku mahadin doono iyo kasratul atbaac ummadda isaga raacdeen rumaysay tiro intay la eg tahay ma jirta nabi ay rumaysay ama gargaaridii guusha laga siiyey wixii cadowa ee uu la dagaalamayo dhan futuuxaadkii dhama ee dal walba loo furay dunida uu qabsaday khayrka aan la tirin karin baa la siiyey kolkaa khayrkaa weyn ee rabbi rasuulkiisa uu ku galladaystay ee mid adduun iyo mid aakhiraba leh mid dunuwi ah iyo mid diini aba leh khayrkaa suuraddu way taabatay waxayna warkeeda ku gabagabaysay bishaaro weyn oo rasuulka loogu bishaareeyey calayhi salaatu wasalaam waxa isaga ka soo horjeeday cadowga in duf ku baxayo bala ku dhacayso ina shaani'aka huwa al-abtar waxa la wixii ku carageliya oo cadow kugu ah oo ka dhan oo ka soo horjeeda dulli iyo falxuma ku dhacaysa bishaaradaas weyn ayaa isaga la siiyey sababkuna wuxuu ahaa rasuulka inuu dhintay calayhi salaatu wasalaam wiil isaga uu dhalo qaasim la oran jiray ayaa dhintay geeridii wiilka cusub baa la maqlay kolkaa qurayshtu wax kale kuma sheekaysan jirin isaga rasuulka ayay ku sheekaysan jireen kolkaasaa wiilkii geeridiisii timid caas ibni waa'il nin la yidhaah oo rag yaab loo dhalay camr ibni alcaas buu dhalo saxaabi jaliila ninkii masar furay camarkaa wuxuu dhalay cabdullaahi ibni camar oo ahaa asxaabta ninka ugu xadiis badnaa ee abu hurayre ka qaaday buu ahaa abu hurayra yidhi anigu waan xifdin jiray isna waa uu dhigi jiray sidaa daraaddeed buu dheeraad ga yeeshay kolka cabdullaahi ibni camr ibni alcaas caas ibni waa'il wey mujrimiintii waaweynee quraysh buu ka mid ahaa kolkii rasuulka lasoo hadal qaaday geeridii wiilkanay cusub tahay yuu yidhi war ninkaa miskiinka ee gablankaa ma iska daysa isagii baaba gablan oo tirtirmay oon waxba haysan kolkaa isagoo dhintay xibsiba ku egyihiin way iska baaba'ayaan maxaad u qiimaynaysaan ninkaa miskiinka ee gablankaa wuxuu wadwato isaga markaa carruur baa u joogtay kolkaasaa rasuulka sii ka xumaaday calayhi salaatu wasalaam kolkaa rasuulka wax ka tiran iyo farac badan ma leh oo ummaddii oo dhan wax ku abtirsada tawuuba ka maalmo wuxuu uga maarmay ummadoo dhan buuba waalid u yahay wasadaqa allahu id yaquul annabiyu awlaa bilmu'miniin min anfusihim wa aswaajuhu ummahaatuhum oo kolkaa ilaa yowmi alqiyaama inta rumayseen raacday ee khayrka ku xusaysa ee cawiya maalin ku salinaysa ee markay rabbi sheegaanba sheegaaya aadaankii baa lagu daray oo aqrimidii baa lagu daray oo salaadii baa lagu daray oo khudbooyinkii baa lagu daray oo shahaadii baa lagu daray kolkaa meel walba khayr lagu xusa ayuu noqday kolkaasaa isagaba bishaaradaa loo sheegay oo la yidhi waxan uu wax moodaayo waad ka dhan tahay adiga isagiina dabargo loo sheegay ina shaani'aka huwa al-abtar labadaa qodob bay suuraddu ka hadashay iyadii oo bilaabatay waa tan bismi illaahi araxmaani iraxiim abda-u haadihi suura waxaan suuraddan ku bilaabayaa bismi illah alla magicii uskashadii allihii arraxmaan naxariis guuda addoommada wada gaarta naxariista arraxiim mid gaar ahaaneed naxariista wey qaala tacaala rabbi wuxuu yidhi ina annaga eebbaah waa tawkiijaab leh maxalalqasan bay taagan tahay ayaa acdaynaaka ku siinay nuunulcadamati waalkibriya wey annaga marka rabbi leeyahay subxaanahu caza wajalla alcadamatu waalkibriya baa lilaahi u sugnaatay wuxuu isku daraayo wax lale ma leh ina annaga eebbaah wey ee cadamo iyo kibriye iyo sharaf iyo qiimi keliganna iska leh ayaa acdaynaaka ku siinay sanucdika lama oran kolkaa waa ficil maali baa laga cabiray wuxuu inay wax adduun iyo wax aakhiraba leeyihiin wuxuu markaa gacanta ku hayay iyo wax dhimanba inay jiraan baa labadaba la tilmaamay ina annaga eebbaa ayaa acdaynaaka ku siinay alkawthar kawthar baanu ku siinay kawtharkaa laba tafsiir buu leeyahy midi waxa wey xadiis saxiixa ayaaba kaa ku soo arooray
حديث إمام الترمذي باوريه رسولك عليه الصلاة والسلام إنه يروى نهر في الجنة كوثر كان وبجنة قلها يدكوها له حافتاهم من ذهب لمدي سجدي ذهب بيكتما يسيه ومجراه على الدر والياقوت ما شد به سيدة عنيسة يكجران يبدها أنا يوهرب كتما يسيه تربته أطيب من المسك عمودي سكوت قل وحاولت لوية قالنا أولم وماؤه أحلى من العسل بيهيس كما عن ملبك وأبيض من الثلج برفتنا وكعدي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا قفك مركع بانا مرلبات مؤومه كوببك قارركي سيالانا عدد النجوم بوليبيهي كوببك قارركي سيال إركا حجيها كيال بيتر الليبيه إساق إنتو الليبيهي ميرا وعلى رسولك عليه الصلاة والسلام مركا مدين الجوبي إلى الليبيهي سنعابوين وبالكبضة انت الله سعوده كل كتاتا رسولك عليه الصلاة والسلام لمن تفسير كاسي قبصدين عبد الله بن عباس نوع عليه والخير كثير وعرفت فعلك كثروي لكن هبكا لو بني كوثر لغو كاني مبالغ خصوصنا كل كوحي ودن باقودة قلايا كل كوحا أشمل سن تفسيرك عبد الله بن عباس وإنا أعطيناك وحا نقصيني الكوثر خير بدون أما الكوثر وبيقى لا يقال مركا تفسيرك عبد الله بن عباس كفا جرتي وبيقى إستقاها غير كميد ونقونها يصلح قلاي خير بدن وبيقى كميديهي والنبي النمو كميتاي والرسالة كميتاي وشفاعة كميتاي ومقام محمود كميتاي وقرقارك الأذى وكاسي تبايلها اللي قرقاري حتى واحد عيد الله ولكن باجرته وحصل له خير كثيرا وإباكو سيو إن أنك إبا هيا أعطيناك كسيني الكوثر خير بدن بالو كسيني وكميديهي سبقى الجنة قلها هذا كلها إبيها معاني كل هذا نكاكو سيني فصليتك لربك ربك أوتك وانحر ربك جرتي وحب له وقوة المشركين أصنام تعابد أيان مركز وهو كان أيان ويقارك هذا تبين أما أنت حولها بأيان بيديك كنت هذين جيد أدوك وحبا إياك وركوذا كما قينا أدوك ربك كلية أوتك وربك درادي وحب قورعوي وأدوك عملك سمين يسوك هل هو من ربك كلية أوتك وصدق الله إذ يقول قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله لا شريك له إساق كلية له إذن لما وذاك سوي والكافصلي وحدوتك لربك كلية وانحر وحد وحبريت لربك كلية وحا مفسرين تقاركو سيقان فصلي له إن إيتاي صلاة عرفة التي كذوي وصلاة عيد الأضحى وانحرنا وحوليه اللي قورعا هل انت عيداو فصلي لربك ربك أوتك وانحر ربك وحوك أولا نحرق قيلو سلمامايا ومن أشرف أموال العرب كل كذبحي لوضا إيا أريا قورعون ذبحي بالليلة لكن نحرق وقيلة معناها وحوي قيلة وحوليه مركي للقنايا وقوقي من بطنا إساقا مركب برين يسيد ألا درسي بريو سيدا مركي رسولك الله أمري وشكرا لله تعالى قد لكم مهدين يسو أيها قدك عملك هذا مركي المشركين أصنامتي يدك حيالك وحجيديا أدوك ألا وحجيدي وصلاة هذه قورة عاقة يهولها قولا دنك آدو مركات ربي سبحانه إن الشانئك كنكو على جليي أيري وقبل يوحى هو إساق أيها الأكثر خير جده كدقوا وحبا خيركم مرم ولو عفوري أجيبته إسرع خير برتي وحكو رعي أذيبوس خير أدن بابد ويلو صحيح خير أدن يسرف بدقات أيالو صحيح إن شانئك كنكو عرقلي هو كاسا الأبتر خير تمانتي متك قوية وخير وحبا كل هاي سيديبونا كل انتو